نكو أفر بريبو حدنا توصان بنا خوي للصوح حدنا الشيء كده حس اللي قدري كتير أنت لو حرب على الدري كتير نض بكو حرين تبينا بوقت اللي قصار ورما دوقاتي حال خلينا كومة وكل شيء شارع يبالة الدري أفر نبى سبوتكتي خليه يكون بس عمر لانقرن مضحوها نيك عمر لانقرن لا مضحوها حناشك خليه يكون بس عفات سوها عفات كيسو بقول بيها نيك لو قور مش بدك نلعب واحد در من الأفراد دي يلا يريك هاي مضحبات مدة باليدي مضحد مركي ويت مدة لينير وحلا يسوي شيء يسوي مرتاي المكيو الحرية اللي يقول وهذا الشيء مش يتلا أما كهذا شارع ماي أضيال باكا هذلي ويجي نصود ده يودي سوى الجديد إنكم حد قاصص الدولة ديو يحاول شيء يسوي بعدين سنة وحلو شيء هي والباهيته لأنك صوبلات الودري ما نروح نقول جسنا جيرين حق درها الودري شيء هي عادي لو قص انتهوا ليه جاي هذا كله هو خد المشاهد سكرات كمان ده كوا أي مكان يمولك بيحنا أرضي دبك عدو قص ستوس ما هو قريسي دبك عدو قص ستوس ما هو قريسي وعسكر تب بوليس كعيدا كويا مرتي دولته صديق بورد هذا عسكر بشيء ما يصير يا عسكر الدشيت رحم ما يصير عسكر الدشيت وأنا لما شو عسكري ميه عمر لانقر ما ضحكا استاذ ترى هايستا أنت دشينين أنا واحد هاي إنك ولا الكيسانة دبنا الحسب فيه دبنا ولا لا أنا مركها واحد من ده الشغلة مركها ساعد وهاي صدق ذي أنا قام مركها ليس الشيء إنك يلو ديك متى أيضا كسلوكنا يدلي البوليس مركها واحد نريد أي تاي صوت يكون دليل يعني مثلا صوت يكون دليل يعني كل إنك ولا صاحب الويب سايت بكرة شغيني مركها شغال يصير كتير من إنه واحد خلاص سميه وصاحب المركها مركها واحد نودرني كله وذاشي باشا سلادين تبى كله ودرني موت كبعد يضل سوا فقصية مركها إن السود هايو أي مركها إن كيرا أنت السود إن نمن سلقة كمذا أي كيرا الله صاب هيموت مركها فرنين أو كدرسن سلقة مبورما أو إنك هو هريل على عمر لانقرة أي مركها واحد كورو قرية دبيديسا يلقي سبوا إلى دعين مركها وحوي أن مركها نريد ميت كنسينا أنا جيبك وايق سعر الموت markan ay la soo baxeen ma jeelka dibadiisa ayay ku garaaceen mise gudaha ayaa lagu dilay kullay labadii goor marna way la soo baxeen marna gudaha ay ku dileen anagu markaan oo nimidnayna waxaan lagu yiri markaa kabaasar anigu markaa su'aal kaliya weydiiyay saliya qaybta oo ku yiri markaa waxa weyn inakaasi uu naga dilayahay waa meyd markaa waxa wax kasta baa jiraan meydkana waxaan la siiyo askariga naga dilayna waxaan la soo qabtaan mood markaas uu saldhigii qaybtu yiri adiguna dambiil aad tahay kabaasar markaa salaadiintii odayaal irga aniga lafteeda markaa iga soo furfuray kabacdi markaa geeri kala joognay waxa dhacday markaa inkiin fursad naloo siin waayo inaan la soo baxno meydkii kabacdi markaa waxa weeyaan saaka ayaa naloo ogolaaday markaa odayaashii inay meydkii la soo baxaan saacad markaa ahayd kulay 9 iyo barkii ma aragtay markii la garaacayay muu xidhnaa mise caadi baa ahaa iska furay kulay aad markii gudaha ay ugu tagay katiinad baa ku taalay dhaawac badan uu qabay markaa waxa weeyaan markii gudaha lagu dilay isagoo katiinada ku taalo oo dhaawac horna qaba ayay ku sii celiyay katiinada ma lugaha iyo gacmaha ka wada xidhnaa gacmaha kaliya labada gacmood bay markaa katiinada kaga xidhan isagoo serious oo waliba dhiig ma tagay furaaqana wax nolol siin waaya anagoo heladiisii walaalihii iyo aabahayo la jooga inaan markaa midkayga qaado ilaa anagu waxaan aragnaa kulli xaqdarra aynu ku samaysay ilaa hadda wax inii yimid oo inigala hadlay ma jirta markaad soo qaadeen markaan soo qaadnay kulli adu way qaar baan noo yimid kuwaasna markaa waxaan nidhi dhibaato weyn buu qabaa markaa waxay yiraahdeen kulli
sheekaya way ku saxsan yihiin markaa u arkaan meydkaanu soo qaadanay uma arkaan iyagu xarqalada inay geysteen laakiin annagu aad iyo aad baan u dhaleecaynanaa kulley cidda saldhigga joogta cidda dishay kulley in fursad naloo sii waayo faamiligiisa maadaama nahay inaan meydka soo qaadana moogta marka aad iyo aad baan u cambaaraynana kulley dadkaasi falxumada ku dilaya ee maxaabiista dilaya kulley maxaad rajaynaysaa imika in laga qabto marka kulley waxaan rajaynaya aduu imika saan aaminsanaya ninkaasi waa meydkaasina kulley waxay tahay waa cadaalad darre kulley lagu sameeyey saxafigaa kulley u dhashay gobolka awdal anigana walaalkiisa ahaa moogta marka anu aad iyo aad fikirkaygu waxay haddii ninkaa la soo qaban waayo inaan aniguna kulley markaa maaragta